waxaan rajaynaynaa inaan dib u aragno taariikhdii hore quruxda badnaa iyo dadkii wanaagsanaa oo Soomaaliyeed ee sameeyay taariikhdan quruxda badan la caawin dibadooyno waa farxad weyn weeye sanad walba in la xuso oo la soo dhaweeyo oo la buubuuniyo oo la muujiyo shucuurta sharaf ay noo tahay dhamaanteen waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo maalintan kooxdu waa maalin ugu weyn aqoonay Soomaaliya ومعرفتي عن سياسة جمهوريتي وطن كان هايستي ومعرفتي الصومالية بلودي مرة واحدة كنت أروح أيوة عن رباط تاريخ أوكران سيدا للصعطان شركة بابني كنسيقال دخل كنسيقال دخل فريسجيت كي صوماليا وحضار كالقيمية شكرا لكم الصوماليا لسكتي جريشان أيام نوع كالقيمية وشكرا استماع كالقيمية gobolada waqooyi oo hadda Soomaaliya loo yaqaan waxa loo diray guuleystaha Ingiriiska ayaa gacanta loo geliyay gobolada koonfureed waxa ayagana loo diray guuleystihii Talyaaniga Soomaaliya galbeed oo dowladda Soomaaliya Itoobiya kuwa hadda loo yaqaan ayagana waxa loo diray oo gacanta loo geliyay Itoobiya NFD waxa loo diray Kenya dalka hadda Djibouti loo yaqaan oo Soomaaliya kamid ah asagana Faransiiska ayaa loo diray oo guuleysanay وقت ده كدي ويستمر ويستي وحال لدي لغاتي جون كنت سجال وقول يلحنكي النوع تعطي ويستي إسكساري جوالله وقولي هذا الصومال له وجه عنه إذا على لدي هذه الجرافة كوب بجنيه لقيت على مجالها الجيسة على كصومالي بلوكا وهذا لما كان الله تعالى قرنا إنسان سريع ومستقبل وأنسيد هاي هاي كان سين كان نصار هذا قرنا إنسان معلوم عندي كل يوم شتوراي قريت عنه أو كل نقطة إنسان وما يوم ما بيجوا تعطي وإسكاس على كونستي قولا وفرات أيضا أسبوع كان يهمل في لواء
iyo gobollada koonfure ay midoobeen runtii waxay ahayd maalin aad farxad badan in Soomaaliya halka jamhuuriyaddii Soomaaliya laga aasaasay Jabuuti oo iyaduna 27 Juun 1977 iyaduna ka qaadatay xorriyadda waddanka Faransiiska ka qaadatay waa maalin aad ugu weyn waxaa laga yahay guud ahaan Soomaaliya hambalyo gaar ahaan shacabka reer Galmudug kuwada ku sugan degmada Kalkacyo dhulka hooyada dalinay harmoonina shisheeyaha uroonina dhaawacaynu gaaline dalintii dadkeegiyey dadkii waa aloolayey daafacmuuna doonayaa gadaal dheeriyuu rabaa dhul shisheeyaasiis danina uma ahane dadkaan difaacana dhul shisheeyaasiis danina uma ahane dowladda camayna waa lamuran daafici qarankiyo inaan daacan qoban suubaha calankiyo salaana camsarraba dhammaanteenu sula kacnaa daafici qarankiyo inaan daacan qoban suubaha calankiyo salaana camsarraba dhammaanteenu sula kacnaa sida haadkaduuno oo dabaylaha raacno oo danteena raacno rugweynaha barayna moolo wanayo waxaan maanta raadinayay rasmaalka dunida iyo diyaankiyo diinaha doolar iyo lacgo aan ka doorbidaynaa dib aan u mudaynaha oo dadka waa israacay Soomaalidii reebaysaneed qoryaha ku weysatay mid qorahay noqotay kowda luuliyo u dadaaldalahaya dabigii shisheeyaha daafacay iska dhigeen kowda luuliyo u dadaaldalahayaan dabigii shisheeyaha daafacay iska dhigeen way ku duuban yihiin oo dadaaldalahayaan kowda luuliyo u dadaaldalahayaan subaha cankiyo dhammaanteen soo kacano u garaacan saacadooda salaana wanaagsan oo maalintii maalmaha ka duwaneed kowda luuliyo runtii waqooyi 26 Juun ayuu xornimada qaatay 27kiina waxaa qaatay Jabuuti maanta oo kowda luuliyana koonfur ayaa qaadatay waxaan rabnaa markaa waqooyi iyo koonfur waxay isku darsadeen intaan taariikhda aan ka hayno xildhibaano gaariya koonfurtu waxay keensatay 90 xildhibaan waqooyiguna waxay keensadeen 36 xildhibaan intaa taariikhda ka hayno 120 xildhibaan ayaa calanka Soomaaliya oo bulugaas dhaxda ka xidigtaas shanta geesood ku taalo ayay kurmiyeen sababta ku kurmiyeen waxa weeye sida ogtihiin baa 13 Israa'iil ayaa ka shaqeeyey gobolka Mudugna waxaa u dhashay Cabdullaahi Ciise Maxamuud iyo Nuuriye dadka Soomaaliyeed ee hadda calankan hoos harsanaya dad la-eg ama ka daba dhow baa u dhintay in calankan xoroobo oo calankan hawada galo oo uu ka mid noqdo calamada jimciyadda qurumaha yaalla dadkaas u soo dagaalamay oo u dhintay oo u dhaawacmay waa mujaahidiin ogaada ilaahay ha ka abaal mariyo aakhirana alla janna allah ugu bedero intii de waxba kama noolaan qiyaasayaa ee wixii noolna caafimaad allah siiyo ku fogaan maayo waqtigu waa idinku gaaban yahay waqtina lama siin Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo